dhalinyaro fakiray ayaa keenay hab casri ah oo caruurta yaryar iyo kuwa dugsiga hoose lagu barayo afka Soomaaliga, xisaabta, juqraafiga iyo xayawaanada iyada oo caruurta u tahay laba arin oo muhiim ah. waa mare waxay u tahay waxbarasho, marna waxay u tahay ciyaar iyo layli maskaxeed caruurta ka caawinaya hindisaha, xalinta mushkiladaha iyo go'aan qaadashada iyaga oo sameynaya caagado ay ku qoran yihiin xarfaha iyo tiro kadibna isku aadinaya kana soo saaraya xayawaan iyo sidoo kale qariirad. dhalinyarada la baxday arday kaal ayaa keenay qalab caruurta ka caawinaya ama ka saacidaya waxbarashada ciyaaraha, waxaana ay ku tilmaameen waxbarashada ka baxsan manhajka. bare maxamed cismaan cabdi waxa uu maadadan ka baxsan manhajka ardada dugsiga hoose iyo dhexe uga dhiga dugsiga mucaasir. waxa uu ka waramayaa faa'iidada ay caruurta u leeyihiin qalabkan isaga oo jajaban lagu wareejinayo caruurta kadibna isku aadin kadib ay kasoo saarayaan xayawaano sida maroodiga, geriga, diiqa iyo sidoo kale gawaarida iyo waliba qariiradaha ay ka mid tahay qariirada Soomaaliya. runtii maanta waxaan halkan u joognaa barnaamij ku saabsan kobcinta maskaxda ardayda, activity badan ee inta ku qabanayna. waxyaabaha ugu weyn waxaa ka mid ah in ardayda ay mar walba noqdaan kuwa diyaar u ah kaliya saxeen kuwa diyaar u ah kaliya waxbarashada kaliya ee buugga iyo qalinka, laakiin sameey karaan waxbarashada maskaxda ah iyagoo diyaarinaya qaybaha kala duwan ee diyaar garowga maskaxdiisa. marka tababar kasta oo maskaxda lagu sameeyo, ardayga wuxuu u faa'iideynaysaa inuu ka fakaro awood u leeyahay inuu xalin karo mushkiladaha inta ku dhex jiro waxbarashada gudaheeda. cilmiga loo yaqaano waxbarashada ayaa lagu kala baxdo. aniga waxaan aqaanaa cilmi loo yaqaano extra curriculum oo ah ardayga in la baro wax ka baxsan curriculumka caadiga ah ee maadooyinka akademiga ah, taasoo macnuhu u sameynaysa ardayga ha noqoto mid jireed, ha noqoto mid maskaxeed iyo mid cilmiyeed labada ha noqoto. marka aqoonta online waxaa ka mid ah ardayda inay awood u yeeshaan inay bartaan kaliya inaysan baran waxbarashada tooska ah, ay bartaan waxbarashada ku saabsan xirfadaha iyagoo kobcinaya maskaxdooda. marka aqoonta online waxaa ka mid ah ardayda inay awood u yeeshaan inay dhisaan maskaxdooda, aqligooda iyo garaadkooda iyo way of thinkingooda inay ka fakaraan waxyaabo badan oo ku xareeraysan gudahooda ama banaanka inta waxbarashada ku jiraan. saamaynta ugu weyn ardayga ku yeelata waxaa ka mid ah ardayga inuu ogaado inuu awood u leeyahay inuu xalin karo mushkiladaha qaar. taasoo macnaheedu yahay marka ardayga markuu ogaado inuu xalin karo mushkilada qaar, wuxuu isticmaalayaa marka aqoonta gaarka uu leeyahay oo ah midda waay-aragnimada ah. marka waxbarashadii tooska ahayd waay-aragnimadiisa ayaa ku darsanayaa waxbarashada dadban oo ah midda extra curriculumka, taasoo awood u yeelanaya marka inuu xaliyo mushkiladaha soo wajahaya intuu ku jiro waxbarashada gudaheeda. sidoo kale wuxuu awood u yeelan doonaa inuu xaliyo mushkiladaha ku saabsan noloshiisa inta uu nool yahay, taasoo ah inuu xaliyo mushkiladaha markuu waxbarashada dhameeyo soo wajihi doona iyo sidoo kale mushkiladaha inta waxbarashada ku jira gudaheeda. marka awood wuxuu yeelan doonaa ee ka caawin doontaa barnaamijyada noocan oo kale ah aad uga caawin doonaan ardayga inuu fakaro wax badan fakaro, sidoo kale inuu wax badan inuu qabto isagoo adeegsanaya awoodiisa iyo aqoontiisa gaarka ah. runtii ka kaliya maahan, waxaa jiro alaab badanaa jiro oo challenge ah oo ardayga uu sameyn karo. ay kamid tahay construction kamid tahay oo kamid tahay ICT aqoonta cilmiga technology kamid tahay iyo even hatta problem solving kamid tahay. marka ganacsatada Soomaaliyeed ka fakaraan inay qalabka noocaas kale xataa ay keenaan ardayda ciid ay keenaan runtii macno weyn sameynaysa. caruurta ayaan la kulanay xilli ay ku jireen layli maskaxeedka ay ku sameynayeen xayawaanada iyo qariirada, waxaana wax ka weydiinay waxa ay ciyaarayaan, sida ay u arkaan iyo faa'iidada ay u leedahay maskax ahaan. bismillaah, aniga magacayga Farxaan Cabshir Cali oo dhintay Saafi. horta waxaan sameynaa wax kordhiyo maskaxda caruurta. geedbalka magaciisa giri yaa ku baraday inuu giri yahay soo weerto aqoonteeda iyo macallimiinta caawiya marka maskaxda iyo aqli iyo watasho dadka kala dhaxay. hadda muuqaalka meesha ka muuqda giri waa sawir meesha ka muuqda giri waa sax. waxa ku qoran maxaa waay? waa tirooyin dhinaca kale halbeeto. maxay faa'iideeyeen marka waxaas in kordhiya ama ku soo xasuusiyaan. Abdurrahmaan maxaa sameynaysaa? maroodi waxaan xayawaanka magaciisa meesha ku soo maroodi see u sameysay xaraf waa xarfaan ma noo akhri kartaa? noo akhri ba ta ja ha qa ta ra sa ta ba ha ga fa qa ka la ma na wa ha ya ku. okay waxaan majacashaa inaad hesho maxay ku faa'iideynaysaa? maskaxda ku kobcinay. korkora loo gudbinayo. waa isku aadin. Faarax Cabdikariin oo ka mid ah kooxda arday kaal ee alaabtan keenay dalka ayaa inooga warramay waxa ku dhaliyay aragtidan, sida ay u mareen in ay alaabtan dalka keenaan iyo sidoo kale faa'iidada ay caruurta u leedahay. waa qaab cusub oo waxbaris ah. markii hore ardayda waxaan ka dhisi jirnay kaliya xusuusta xifdinta bas aan ka dhisi jirnay. waxba loo sheegaa kaas
su-aashaas jawaabteeda waa saas su-aasha jawaabteeda waa saas kan waa laakiin waa nooc cusub oo waxbaris ah ardaygii waxaa laga dhisayaa muxuu ahaa maskaxdiisa inay shaqayso inuu dhibtii uu xalliyo inuu hal abuur la yimaado inuu muxuu ahaa waxyaabahan hortiisa yaalo uu falaqayn karo taxliilin karo dhihi kara kan iyo kan cilaaqadaana ka dhaxaysa labadan waa isku saas waa waxaas oo dhan oo ardayga uu baranayo qalabkan caruurta ku baranayaan alifbeetada afka hooyo xisaabta iyo sidoo kale qariiradaha ayaa faa'iidada kale ee uu caruurta u leeyahay waxaa ka mid ah barashada midabada maadaama ay kala nooc duwan yihiin